السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنالك مركلة سودة وذا أدي هذا وما تنتهين مانتا وجمعة وناكسنا يا ندلي هاي وأنا لبي لباتنك بيش شناد إيمي سنة كلبا كن إيه اللحية لباتنك عيد وين تيام عيد الأضحى وإيسود وذهي وحنفلي يا ضد فربضان إن يوديار جروبيان موقال كانوا حربا إن ندي كله وذاقو قار كم إذا الصومالي دي شلي دعوة لجوسو أوجي أو مانتا محكمة لسو تاجي إسلام كانت ضمانة لجوسي داي نينكي شلي baxsaday ee Soomaaliga ahaa xilli ciidamadu ay doonayeen inay soo qabtaan kana mid ah dadka dacwadda lagu soo oogay oo saacada kadib shalay galankii dambe la soo qabtay isla markaana xalay xabsiga ku bariyayna waan idinla wadaagayaa sidoo kale cudurka Ebola waxaan ognahay in wadamo badan oo Afrikaan uu ka dilaacay hadda wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka dadka muwaadiniinta Mareykanka iyo kuwa green card ka haysta ee ka soo laabanaya qaar ka mid ah wadamadaasi cudurka Ebola uu ka dilaacay oo Uganda iyo South Sudan iyo Congo ay ka mid yihiin hal airport ayay u qorsheeyeen inay ka soo degaan haddii 21 maalmood ee la soo dhaafay ay wadamadaasi saddexda midkood ay tageen haddaba airportkaasi loo ogol yahay muxuu yahay marka ay soo degaana maxay la kulmayaan waan idinla wadaagaya wasiirkii afraad oo haween ah oo maamulka madaxweyne Trump ka tirsan oo maanta ku dhawaaqday inay xilka isaga degayso muxuu yahay sababta ay isku casilayso ilaa iyo 4 dumar ah ayaa hadda maamulka madaxweyne Trump golahiisa wasiirada qaarna uu isagu xilka ka qaaday qaarna iyagu ay iscasileen waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada maalnimadii shalahayd waxaan ognahay in 15 qof oo Soomaali u badan lagu soo oogay dacwado la xiriira musuqmaasuq dhinaca caafimaadka ah oo lacago fara badan oo ilaa iyo 7 barnaamij oo dawladda federaalka ay siineysay gobolka Minnesota in ay musuqmaasuqeen lacag 90 milyan oo dollarna lagu tabayo haddaba 15 kaasi qof 7 kamid ah waa ajnabi 8 qof ayaa Soomaali ah maanta waxaa maxkamad la soo taagay 2 kamid ah dadkii dacwadahaasi lagu soo oogay waana labada gabdhood oo dhinaca autismka in shirkadihii ay lahaayeen lagu eedeeyay lacag 46 milyan ka badan inay musuqmaasuqeen Xanaan Mursal Yuusuf iyo Shamso Axmed Xasan ayaa maanta maxkamad la soo taagay damaanad ayaa lagu sii daayay waliba shuruud ay ku xiran tahay oo ah inaysan wadanka ka bixi karin waxa jirtay 2 toddobaad ka hor miyaadiga inuu jiray qof Soomaali ah oo dacwad inta lagu soo oogay xilli maxkamad uu u balansanaa la waayay meel uu ka baxay marka dadkan intooda badan baasaboorada in laga qaato ayaa laga yaabaa iyadoo laga cabsi qabo inay baxsadaan oo wadanka ay ka safraan marka maxkamadaasi ayaa maanta la soo taagay isla markaana sidoo kalena damaanad ayaa lagu sii daayay faahfaahin dheeraad ah lagama bixin ninkii marka Soomaaliga ahaa ee shalay markii gurigiisa loogu tagay oo la doonayay in la soo qabto intoo balakoonka ka booday waliba isagoo hintinaya oo funaanad iyo buumo wata labadiisa kaboodna midna gacanta ku wato baxsanaya lagu soo bandhigay shirkii jaraa'id isla shalay galinkii dambaba waa la soo qabtay Maxamed Cabdiqaadir Cumar oo 32 jir ah waxa uu ku eedeysan yahay dambiyo ah musuqmaasuq dhinaca caafimaadka ah oo ilaa iyo 4 dambi oo kala duwan ayaa isaga iyo waliba Ibrahim Bashiir Cabdi oo 25 jir ah ay ku eedeysan yihiin laba company ay iska lahaayeen oo Home Health Care oo la yiraahdo North Home Health Care iyo sidoo kalena South Home Health Care LLC ay labaduba lahaayeen lacag 3.3 milyan ah ay qaateen ayaa la leeyahay ay dalbadeen laakiin lacagta la siiyo oo ku maqan waa 3.2 milyan oo dollarka Mareykanka laakiin waxa la yaab la shalay shirka jaraa'id xitaa in lagu sheegay dad loo baahnaa 24 saac in lala joogo oo adeeg la siiyo oo iyagu waxba aan qabsan karin in laga tagay dadkiina iyagoo meyd ah gurigii loogu yimid isla markaana dadkaasi waa dad in la keergareeyo oo adeeg la siiyo lala joogo musqul la geeyo wax loo qabto cunto la siiyo loo baahna marka lacagtiina waa lagu soo biilgareysto waxa la yiri qofkaasi waa la joognay qofkiyo meyd ahna waa loo tagay waliba dad Soomaali ah ayaa ku qornaa qofkaasi meydka ah oo loo tagay dadka shirka jaraa'id shalay waxyaabaha lagu soo bandhigay ayay kamid tahay marka musuqmaasuq xaggaba iska dhig dadka qaar ayaaba dil lagu soo oogi karaa dacwado dil ah maadaama qofkan iyagu ay ku qornaayeen adeega shirkadda siinaysan xitaa mid Soomaaliya ay tahay oo loo baahnaa inay ka taxadiraan in qofkii oo meyd ah loo tago arrintaasi waa arrinba dacwado dhinaca dil ah in lagu soo oogi kara dadka qaarkood marka laga tago musuqmaasuqa One patient was supposed to be receiving 24-hour care through this program, but he was actually being serviced by a fraudster and received no services. This patient was later found dead. Marka arrimahaasina intaasi ayaan ka gudbaya cudurka Ebola
waxaan ognahay inuu ka dilaacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo oo hadda la leeyahay kiisaska laga shakisan yahay 750 kiis ayay kor u sii dhaafayaan dadka dhintayna 177 ayay marayaan qof sida hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay leedahay cudurka Ebola daawo ma lahan talaalna ma lahan daawooyin kaalmaati oo kaliya ayuu leeyahay calaamadihiisa waxaa ka mid ah qandho qofka murqa xanuun inuu dareemo madax xanuun markaas kadibna dhiigbax gudaha ayaa imaanayo qofkuna waxa suuragal ahba inuu u geeriyoodo marka hadda waxaa jira laba dhakhtar oo Mareykan ah oo dadkan missionaries la yiraahdo oo diinta Christianka faafiyo ka shaqeynaya Congo mid kamid ah waxa la yiraahdaa Dr. Barry Stanford isaga iyo xaaskiisa iyo 4 caruur ah ayaa isaga laga helay toddobaadkii la soo dhaafay cudurka Ebola marka waa la qaaday sida aad aragtaan bac ayaa la geliyay isaga dhan babal waa la soo qaaday Jarmalka ayaa la geeyo lagu daweynayo Mareykanka xitaa dadkoodii oo cudurka ku dhacay waa ay diidan yihiin Mareykanka inay keenaan hadda Jarmalka ayaa lagu daweynaya dhakhtar kale ayaa isagana sidoo kale uu ku dhacay oo Mareykana isagana waxa la geeyay magaalada Prague ee caasimadda waddanka Czech Republic oo lagu daweynayo arbacadii waxa dhacday diyaarad Faransiiska ka soo baxday oo magaalada Detroit ee gobolka Michigan u soo socotay in lagu arkay qof dhawaan booqday inuu saaran yahay qof dhawaan booqday waddanka DR Congo markaas kadib diyaaradii waxa loo weeciyay magaalada Toronto ee waddankaasi Canada because Mareykanku wuxuu yiri qof aan muwaadin Mareykan ahayn oo wadamadaasi tagay gabi ahaanba sida Uganda Congo iyo South Sudan ma soo gali karo Mareykanka markaas kadib qofkii waxa lagu dajiyay xitaa calaamado ma aysan ka muuqan qofkii waxa lagu dajiyay Canada kadibna diyaaradii waxa loo ogolaaday inay Detroit Michigan ay ka soo degto hadda marka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka amarkan ayaa ka soo baxay shalay oo 22kii bisha ahayd amarkan waxa uu yahay dhammaanba dadka muwaadiniinta Mareykanka ah ee dhalashada haysta ama baasaboorka iyo kuwa green cardka haysta ee saddexdaasi wadan ee Congo Uganda iyo South Sudan booqday 22kii maalmood ee la soo dhaafay marka ay Mareykanka ku soo laabanayaan waxa ay ka soo degi karaan hal airport oo kaliya haddaad rabtid Minnesota deganaaw ama gobol kale oo Mareykan deganaaw haddii Uganda qoyskaada Soomaali badan ayaa dadkooda ay degan yihiin oo booqdo haddii qoyskaada aad booqanayso Uganda oo aad doonayso Mareykanka inaad ku soo laabato 22kii maalmood ee la soo dhaafayna aad saddexdaasi wadan ee Congo Sudan iyo waliba Uganda mid kamid ah aad booqatay baasaboorka Mareykanka aad haysato ama green card airportka kaliya oo ka soo degi karto wuxuu yahay airportka Washington Dulles International oo ku yaala Virginia haddii tikidkaadu uu ahaa gobol kale waxa loo baahan yahay inaad bedelato ama inta aad kansasho mid kale aad soo jarato maxaa yeelay waxa halkaasi kula kulmi doono qofku marka uu soo degto mas'uuliyiin dhinaca caafimaadka oo ka tirsan hay'adda xakamaysa faafitaanka cudurrada ee CDC-da mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda amniga gudaha iyo mas'uuliyiin ka tirsan ciidamada xuduudaha ilaaliya markaas qofkaasi baaritaan guud ayaa la marsiin doonaa haddii uu karantiil u baahan yahayna waa la karantiili doonaa oo calaamado lagu arko haddii qofkaasi loo arko inuusan cudurkii qabinna kadibna waxaa loo fasaxi doonaa gobolkii uu u socday inuu sii aado marka haddii aad Soomaali tahay oo ama South Sudan kulay Congo waxaan filayaa Soomaali fara badan inaysan joogin laakiin Uganda dad fara badan oo Mareykanka ku nool dadkooda ku nool qaar ba xaasaskooda ama odayaashooda ay degan yihiin marka haddii aad Uganda ka soo baxaysid oo bad joogtayba 22kii maalmood ee la soo dhaafay baasaboorna aad haysato ama green card waxa kaliya oo tikidkaada aad ka dhigan kartaa u bedelan kartaa laguna ogol yahay inaad ka soo degto airportka Washington Dulles International Airport oo ku yaala Virginia haddii meel kale aad ka degto arintaasi caqabad ayay kugu noqon kartaa arintaasina wasaaradda arrimaha dibadda ayay ka soo baxday ugu dambeyntii madaxweyne Trump ayaa goordhow waxa uu soo qoray in taliyihiisii sirdoonka haweeneyda la yiraahdo Tulsi Gabbard oo markii hore dimuqraadi ahaan jirtay laakiin Republican isku bedeshay oo Trump intii ololaha doorashada uu ku jiray inta ay taageertay kadibna uu wasiir ka dhigay ayaa waxa uu madaxweyne Trump sheegay in 30 bisha June ay iscasili doonto maxaa yeelay odageeda oo la yiraahdo Abraham ayaa waxa laga helay nooc kamid ah kansarka oo dhifa in qofka laga helo oo ah midka lafaha gala marka waxa uu yiri odageeda ay doonaysaa inay la joogto isla markaana waxaan u rajaynayaa inuu si degdeg ah ku soo kabsado sidaas darteed waxa uu sheegay shaqo wanaagsan ay soo qabatay waana uu ka mahad celinaya shaqadii ay soo qabatay waxaana uu sheegay ku xigeenkeeda oo la yiraahdo Aaron Lucas inuu hadda ku sima ka sii noqon doono hay'adda sirdoonka qaranka
ee Mareykanka sidaas darteed waxay noqonaysaa wasiirkii afraad oo waliba haweena oo maamulka Trump ka tirsan amaba iscasilo amaba sidoo kalena Trump uu xilka ka qaado waxaan ognahay sidoo kalena in hadda 21kii bishii Abriil ee la soo dhaafay haweeneyda la yiraahdo Lori Chavez Dremer oo wasiirka shaqaalaha ahayd in iyadu ay iscasishay maxaa yeelay waxa lagu helay in mid kamid ah shaqaalaheeda xiriir hoos ay la lahayd lacagana sidoo kale dawladdu ay lahayd ay si qaldan u isticmaashay marka waa ay iscasishay wasiirkii amniga gudaha waxaan ogeyn Trump 5tii bishii Maaj ee 3 inuu xilka ka qaaday wasiirkiisii cadaaladda Pam Boendina in uu 2dii bishii Abriil uu xilka ka qaaday marka laba kamid ah iyaga ayaa iscasilay halka labana Trump uu xilka ka qaaday dhamaantoodbana wasiiradaasi waa haween marka arintaasina Trump ayaa goordhow soo qoray aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo